بسم الله الرحمن الرحيم كلام وعن أو ونكسن داوديال soo dhawaada halkan waa warbaahinta durdurka wararka Puntland oo markan wado dhaqdhaqaaqii ugu xooganaa oo ay ku doonayso in gabi ahaanba ay ku sifayso dhulka buuraleyda ah ee Calmiskaad warar waxaan idin xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay dagaalka Calmiskaad sidoo kale waxaan idin soo gudbinaynaa Puntland oo dalacsiinayso oo darajo markaas siinayso awr kamida awrtii ay adeegsanayeen ciidanka difaaca Puntland intii ay ku guda jireen hawlgalka buraha Calmiskaad faahfaahinta ayaan idin markaas wadaagi doonaa sida ay ku suurtagelayso in awr la dalacsiyo oo isagu markaas xoolaha kamida faahfaahinta ayaan idin soo gudbin doonaa daawadayaal haddii ay tahay markii koowaad ee soo booqatay soo dhawow muuqaalkan la gare sina sheergare si dad badan xogtan ay u gaarto Puntland waxa ay markaas wadaa dhaqdhaqaaqii ugu xooganaa ee ay ku doonayso in gabi ahaanba kooxda argagixisada ay kaga sifayso dhulka buuraleyda ah ee Calmiskaad waxa socdo abaabulkii ugu xooganaa ciidamo cusub ayaa la diyaariyay oo la doonayo in gabi ahaanba kooxda lagaga saaro Calmiskaad dagaalka hadda waa uu sanajirsaday laakiin 6 bilood ayaa loogu daray ciidanka difaaca Puntland in hawlgalkan gabigiisa ay ku soo afjaraan 6 bilood marka loo eego waa muddo aad u yar laakiin waxa laga markaas tusaale qaadanaya awoodda iyo tabarta kooxdan rag badan oo ka soo goostay dhawaan waxay tilmaameen in nimanka halkaas ku sugan ee wali buraha hoostooda ku sugan in aysan tabar badan lahayn isla markaana ay ciidanka difaaca Puntland awood u leeyihiin ugu yaraan ama ugu badnaan 6 bilood in ay ku soo afjaraan ciidamada difaaca Puntland 24 saac la soo dhaafay waxay sameeyeen hawlgallo aad u xoogan oo lagu beegsaday goobo la tuhunsan yahay in ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab sidoo ay iraahdeen kooxda Daesh sidoo kale ciidamada difaaca Puntland waxa u suurta gashay in ay markaas burburiyaan saldhigyo kooxdaasi ay lahaayeen duqeymo ayaa sidoo kale jiray duqeymo aad u xoogan oo ciidamada Mareykanka ay ka fuliyeen qaybo kamid ah dhulka buuraleyda Calmiskaad goobahaasna waxa lagu beegsaday xubno markaas la tuhunsan yahay in ay yihiin horjoogayaasha kooxda waxaana haatan soconaya hawlgalkii ugu xooganaa oo Puntland ay ku doonayso in gabi ahaanba ay ku soo afjarto dagaalkan ka soconayo dhulka buuraleyda ah ee Calmiskaad Puntland hawlgalkan saraakiil aad markaas muhiim u ah ayaa kaga geeriyooday oo ay ku weysay laakiin wali waxa ay markaas ku taamaysaa in gabi ahaanba laga waayo dhulka buuraleyda ah Calmiskaad kooxda argagixisada isla markaana laga nadiifiyo waana qorshaha xukuumadda Siciid Dani ay markaas hadda damacsan tahay toddobaadkii la soo dhaafay Puntland waxa markaas ay soo saartay oo xirooyinka tababarka ay ka soo saartay ciidamadii ugu faraha badnaa ee la doonayo in hawlgalkan ay qayb ka noqdaan qaybtood way gaareenba furimaha dagaalka ay gaareen halka kuwa kalena la filayo in dhawaan halkaasi ay gaaraan furimaha hore ee dagaalka Calmiskaad waxa ku sii qulqulaya ciidamadii ugu faraha badnaa ee doonaya in ay qayb ka noqdaan hawlgalka Calmiskaad isla markaana ay soo bedelaan ciidamada daalay ee muddada sanadka ah furimaha hore ee dagaalka ku sugnaa kuwaas oo markaas loo arko in ay u baahan yihiin markan nasiino maadaama awoodii kooxdan ay weeqantay hawlgalka waxa ka dhiman uu wax yar yahay in dhiig cusub markaas lagu shubo ciidamada isla markaana ciidamo fresh ah oo hadda tababar ka soo baxay halkaas la geeyo iyadoo ciidamada dhammaan la soo wada qaadeen in hadana qayb loo soo qaado waxagaag muxuu yahay awrkan Puntland ay markaas damacsan tahay in ay dalacsiiso waa sheeko aad markaas aad u xiiso badan wayahay Puntland inta dagaalkan uu socday buraha Calmiskaad gaadiid horta ma jirin sababtoo ah dhulka lagu dagaalamayo wuxuu ahaa dhul buuraley ah oo ay adag tahay in gaadiid uu isticmaalo ciidamada marka waxay u baahnaayeen haddii askari ka dhaawacmo ama ka geeriyoodo in la saaro gaadiid uu helo sidoo kale sahayadooda sidoo kale hubka culus ee aan garbaha lagu qaadi karin in la qaado dhammaan waxaas marka maxay ka saaciday awr iyo dameero awrta la rarto ee geela iyo dameero ayaa ka saaciday in ciidanka difaaca Puntland ay markaas si adeegsadaan hadaba horta muuqaalkan ila daawada marka intaanan sharaxaad ka bixin ila daawada ayaa loo barartigaan warkiisa nasi tiga kani niyow waa u jeedaan alxamdulillah hadir waa fiican yahay mar buu dhaawacma sax waa awrtii fakti u horeysay dagaalku markuu bilowday awrtii dagaalka wax ka gashay waan gartay wuxuu ka soo dagaalamay Miiraale Baledhid Dhaadaar Dhasaan Tuurma Saale iyo Xabley
waa soo halgama awrkan Haye. marba asagoo nin dhaawaca wada askari dhaawaca Puntland daraba adigu xabada caloosha ka sirtay hadeer dhinacaas waa biskooti Sax. waa la dhaqtay daawooyin baa la siiyay waa xanaanaynay haddaba waxaan weydiinayaa ummadda Haye. artigaani waa arti soo halgamay Aan gartay. mayd iyo dhaawac buu qaaday intii la doono Haye. muxuu xaq u leeyahay maanta ninkii bireeya oo hilib ahaan u qasha ama ma garanaysaa muxuu mudan yahay asagu darajo intee la eg buu mudan yahay waayahay waxaan rajeynayaa inaad soo daawateen muuqaalkan askariga waxa uu markaas sharaxaad ka bixinayaa shaqadii adkayd ee awrkan uu la qabtay ciidanka difaaca Puntland tan iyo howlgalkii marka uu ka bilowday dhacdada haddaba askariga waxa uu xusayaa in uu markaas awrkan si weyn u caawiyay ciidamada oo xitaa uu dhaawacmay awrkan oo dhaawac uu soo gaaray inta howlgalka markaas lagu guda jiray askari kamid ahaa ciidankii caalamiskaas ku dhaawacmay oo hadda ku naafoobay muuqaaladiisina dhawaan aragteen laga yaabo askarigaas waa awrkii uu sheegayay uu lahaa anigoo dhaawac ah oo awrkaas lagu wado isagana dhaawacmay xabad haleeshay marka arinta xiisaha marka waxay tahay in shacabkii ka falceliyay aragtiyadooda ka dhiibta awrkan in ay codsadeen in awrkan ay Puntland dalacsiiso waxa la yiri awrkan maadaama uu soo halgamay ciidamada si weyn u caawiyay waa in la dalacsiyo oo sida ciidanka loo siinayo darajada oo loo dalacsiinayo in isagana la dalacsiyo halka qaybtoodna ay soo jeediyeen in 300 oo halaal lagu dhaxdaro oo barqab looga dhigo qaybo waxbay soo jeedisay laakiin qaybta ugu xiisaha badan waxay tahay in awrkan la dalacsiyo waa aragteena u maleynaa wadamada kale caalamka inta badan eeya ciidanka caawiya oo adeegsadaan eeyahaas waa la dalacsiyaa darajo la siiyaa waxaa maqlaysaa eegaas kabtan waaye eegaas gaashaan la dhexe waaye gaashaan la sare waxaas maqlaysaa marka hadda marka eegan waxaan ka wadaa awrkan waxaa la leeyahay waa in la dalacsiyaa marka Puntland fariinta ay jeedinayaan shacabka reer Puntland ma ka jawaabi doontaa ee ah in awrkan la dalacsiyo waayahay adiga laftirka aragtidaada halkan noogu reeb awrkan maxaa laga yeeli karaa maadaama askarigu uu soo jeediyay dhowr talo yani mid markaas lagu waafaqi karo yani in ama la sii daayo oo iska sii daayo doorkiisa iska galo in la qasho la gowraco ama in markaas la dalacsiyo shaqada uu sii wado marka aragtidaada waa noo muhiim Puntland waxyaabaha ugu waaweyn howlgalkan ka caawiyay awrta la rarta ayaa qayb ka ah dagaalka sideedaba awrta wax sahlan ma aha ugu soo orod ma aha weligeeda la adeegsan jiray wax cusub horta ma aha laakiin awrta waa gaadiid aad iyo aad mataqaanay u caawiya ciidamada marka ay ku jiraan howlgallada Puntland marka waxyaabaha ay ku caanamaashay hadda awrta ayaa kamid ah sidoo kale dameerada soo raaco iyagana ay markaas adeegsanayaan dhulku waa dhul buuro ah oo jaq ah oo gaari in uu maro aysan markaas haba yaraatee suurtagal ahayn haddaad nala soo gaartay dhamaadka waan kaaga mahadcelinaynaa muuqaalkan like gare sidoo kalena sii share gare si dad badan uu u gaaro oo gruubyada ay ku jirto ku share gare sidoo kalena noogu soo biir haddaad horey noola joogin oo subscribe noo taabo si warbixinadeena kale aad u heshid aad baa mahadsantihiin